Maxamed Maxamuud Yuusuf waa nin dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Hargeysa. Maxamed labadii sano ee ugu dambeeyay waxa uu daris la ahaa xanuun ka asiibay dhinaca caloosha iyo weliba uurku jirta. Xanuunkaasi oo ka dhigay sariiryaal. Maxamed marba marka ka dambaysa xaalkiisa caafimaad wuu ka sii darayaa. Dhakhaatiirta caafimaadka ee Hargeysana waxa ay u sheegeen inaan xaaladda caafimaadkiisa dalka gudihiisa waxba lagaga qaban karayn oo uu u baahan yahay in la geeyo dhakhtar dibadeed. Waxaanu Maxamed noo sheegay inuu ahaa bahda caafimaadka isagoo ka howlgalaya cusbitaalka TBda ee Hargeysa ee ay maamusho wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland, isla markaasina uu labadii sano ee u dambeeyay dhulyaal ka dhigay. Xanuunkan uu wehelka iyo dariska la noqday xoog iyo xoolo wixii uu hayeyna ay kaga baxeen muddadaasi sidii uu caafimaad u heli lahaa, balse ay dayra ka muujiyeen in dalka gudihiisa wax lagaga qabto dhakhaatiirtu. Waxaanu noo sheegay hayntooda oo yar inaanay qoyskoodu awoodin inay u diraan dhakhtar dibadeed. Waxaanu Ilaahay dartii uga codsanayaa bulshada Soomaalida iyo cid kasta oo xasanaadka iyo khayrka jecel inay soo caawiyaan, gaashaan iyo garab istaagna u muujiyaan wakhtigan xaaladda caafimaadkiisu adag tahay, maadaama uu rajo fiican ka qabo inuu ka bogsoon doono xanuunka uu labada sanno sariirta u jiifo haddii uu helo kharashka cusbitaal dibadeed oo wakhtigan loo qaado. Alle ayaa bixiya xoolaha iyo caafimaadka labadaba. Walaalkeen Maxamedna alle uma waayin caafimaad iyo kharash uu kula tacaala caafimaadka noloshiisa, balse Rabbi subxaanahu wa tacaalaaye waxa uu ku eegayaa kuweenna uu siiyey nimcada caafimaadka iyo xoolahaba sida ay ka yeelaan walaalkooda jilicsan ee u baahan taakuladooda. Fadlan walaalkayga muxsinka ahow ka qayb qaado sidii uu dhakhtar dibadeed uu caafimaadkiisa wax ka qabta u tegi lahaa Maxamed, maadaama uu inta badan noloshiisa uu ka soo shaqaynayay arrimaha caafimaadka oo in badan oo inaga mid ah oo xanuunsan uu u fidiyey adeeg iyo daryeel caafimaad. Fadlan wixii aad awooddo Ilaahay dartii ugu soo hagaaji nambarada saadka iyo dahabta iyo weliba akoonka dahabshiil ee shaashadda hortiinna ka muuqda. Waa Maxamed Maxamuud Yuusuf. Muddo imika dhowr sano waan xanuunsanayay. Labadii sano ee ugu dambeeyayna aad baan u xanuunsaday. Caloosha laga hayaa, matag iyo shuban baan leeyahay. Cunto ma cunayo, faleembooyinka iyo dawooyinkaas baa laygu wadaa. Dhakhaatiir badan ay baadhbaadheen waxay igu sheegeen inaan caloosha iyo mindhicirada halka iska galaan nabarro iga yaalaan. Dawooyin bay ii qoreen, dawooyinkiina wax isbedelo ilaa hadda kuma hayo. Wixii adduun iyo kharash aan haystayna waxay igaga dhammaadeen intaas. Ilaa hadda waxaan hayaa ma jirto. Xanuunkaygana waa igu sii tarayaa. Saas daraadeed waxaan walaalaha Soomaaliyeed ee muslimiinta ka codsanayaa inay iga caawiyaan arrinta caafimaadka wixii ay tari karaan. Xaaladeeduna aad bay u sii jilcaysaa. Marka mar labaad ka codsanayaa inay iga kaalmeeyaan arrinta caafimaadka inaan dhakhtar dibadda u yara baxo. Intaasaan jeclaan lahaa.